kulan wacan wanaagsan idil ahaantiinba meel walba joogtaan iyo si walba is arag maqalkeena idiin soo gaadhay ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah dagaalo xoogan oo ka socdo dalka Ethiopia iyadoo lagu soo waramayo in sirdoonka dalka Ethiopia ay soo qabteen rag lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab deegaanka Soomaalidana waxaa la sheegay ayadana inay qabteen 12 qof oo ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab waxaana guud ahaan dalka Ethiopia haatan la geliyay ciidamada iyo sirdoonka qaranka dalka Ethiopia heegan buuxo kaasi oo la rabo in laga hortago xarakada iyo argagixisada ku soo badanayso dalka Ethiopia waxaa sidoo kale warkeena ku maqli doontaan gobolka Darfur ay isku haystaan South Sudan iyo Suudaanta weyn ayaa iyadana waxaa ka jiro xasuuq baan kaasi oo u dhaxeeyo qowmiyadaha halkaasi dego ayadoo khamiistii in ka badan 160 qof lagu dilay hal meel dagaalkana halkaasi wali waa uu ka socdaa labada dhinac waa dawladda South Sudan iyo tan Suudaanta weyn wax wara kama aysan soo saarin halkaasi ayadana halkan ayaan ku lafaguri doonaa haddii ay tahay markaad ku warisay channelka aad soo booqato subscribe sar oo si gaarsiiya asxaabtaada kale haddii aad horey noola joogtayna waad ku mahadsan tahay halka ka wada daawashadaada dawadayaal barnaamijka waxa igu weheliyo saaxiibkay Santaag dalka Ethiopia waxa uu ku jira xaalad khatar ah iyadoo caasimadda dalka Ethiopia laga qabtay dad gaadhayo 34 qof kuwaasi oo lala xiriirinayo xarakada al-shabaab dalka Ethiopia waxa uu ku naaloonayay muddo badan nabad iyadoo aysan jirin wax urur argagixiso halkaasi ka dagaalamayo haddana sirdoonka dalka Ethiopia waxa ay sheegeen in dalku uu galayo xaalad aad u adag iyadoo deegaanka Soomaalida laftirkiisa laga soo sheegayo xaalada noocaasi oo kale bal maxaa u dambeeyay adigoo soo koobaya waqtiga awgiis aad baad maasan tahay waxaana ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaba waan salaameynaa salaan kadib hadaan u guda galo barnaamijka dalka Ethiopia horta af ayuu Ethiopia hadda ka yahay Ethiopia sanad iyo bar dagaal ayaa ka socda kala aragti duwanaansho siyaasadeed iyo tuhun lala xiriirinayo afgambi iyo dhibaatayn iyo dagaal xoogan oo gudaha dalka Ethiopia ka socda ayaa jira taasi ayaana sabab oo ah in Ethiopia ay kala furfurato oo al-qaacidada iyo argagixisadu ay gudaha soo gashay dalka Ethiopia dalka Ethiopia waxa nabad ka ahaa sidaan wada ogeynba deegaanka Soomaalida oo ayagu ku naaloonayay nabadgeliyo iyo xasilooni inay ka jirto oo la lahaa Soomaalidu way isfahantay oo wax murana dhaxdooda ka batagn hase ahaatee maalmihii ugu dambeysay waxa socday Ethiopia deegaanka Soomaalidu in kala aragti duwanaansho iyo uburin iyo xarig lagu la kacay saamilayda siyaasadeed iyo xisbiyada siyaasadeed ee dawladda deegaanka Soomaalida kuwaasi ayaana waxa la dhihi karaa in ay koow horta ay sabab u tahay in dawladdu ay ka mashquusho wixii iyada loo idmaday oo ahaa ilaalinta amniga iyo xasiloonida deegaanka dawladdu waxay ku mashquushay macanow in ay gudaheeda iyo dadka adkaarta kala duwan wata ee dawladda dhaliilaha u soo jeedinaya in ay ka hortagto oo ilaaliso iyadoo hoteelo badan magaalada Jigjiga ku yaalana la xiray kuwa kalena lagu daba jiro oo dawladdu dhinacaasi ay u jeeyis waxa kale oo iyadana fashil ka qayb qaatay oo sababay in dawladda deegaanka Soomaalidu ay soo galaan argagixisada ciidamadii liyu booliska ee faraha badnaa ayaa loo daadgureeyay goobaha ay dagaal ka socdaan ee dalka Ethiopia sida deegaanka Oromia oo dagaal ba'ani uu ka socdo tan iyo intii isbedelka dalka Ethiopia uu ka dhacay oo jabhadda xoreynta Oromia ay ciidamo aad u tiro badan ay soo tababareysay oo tababar ay u soo xireysay dagaal xooggan halkaasi ay ka waday waxay sidoo kale dawladda ayaana cabasho ka imaatay waa dawladda dhexe ayaa sababay in ciidamada liyu booliska dhinacaasi loo qaado oo laga horgeeyo ciidamada jabhadda xoreynta Oromia oo dawladda federaalka ciidamada dawladda federaalku ay u tag waayeen Santaag waan ka dhaxgalay dawladda deegaanka Soomaalida iyo dhaliilihiisa waan soo laaban doonaa sirdoonka dalka Ethiopia magaalada Addis Ababa waxa ay soo qabteen 34 qof oo laga qabtay isla gudaha magaalada Addis Ababa deegaanka Soomaalida dulduleela ayuu leeyahay oo sheegtay laakiin Addis Ababa waa meeshii dawladda dhannayd ay deganeyd dadkan la soo qabtay waa 34 qof waxa ayna yihiin balda intooda badan Soomaali iyo qowmiyadda Oromada waa dad muslimiin dabcan sida darteed ayaana haatan ay sirdoonku ku sheegeen inay abaabulayeen kuna cagahana kula jireen iyo lugaha kula jireen in ay fuliyaan falal lid ku ah nabadda iyo xasiloonida dalka Ethiopia arintani maxaa loo fasirin karaa orda dawladda Ethiopia argagixiso waxay u taqaanaa wax walba oo hadda dagaalamaya la loo yaqaanaa waa dhinaca dawladda federaalka marka laga eego ururadan hadda ka dagaalamaya gudaha dalka Ethiopia sida TPLF
jabhadda xoreynta Oromia dhammaantood waxaa loo yaqaan Bishangul Gumus oo Bishangul Liberation Front kuwa la yiraahdo dhammaantood waxaa loo yaqaanaa inay yihiin ururo argagixiso marka dabcan haddii dawladdu ay u aqoonsatay dadkii muwaadiniinta ahaa ee ka adkaartoonaa maamulka qaabka uu shaqaynayay iyo ra'iisul wasaaraha ka soo horjeeday loo aqoonsaday inay yihiin argagixiso waa arrin marka sabab u noqon karto in argagixiso kale naftigeeda ay gudaha soo gasho oo calaqaad wada shaqayn ay yeeshaan ururada argagixisada dalka dibadiisa ka dagaalamaya iyo kuwa gudaha ka dagaalamaya oo dawladda federaalku ay u aqoonsatay argagixiso lama rabin talaabadaasi inay dawladdu qaado oo ay u aqoonsato urur argagixiso argagixisada iyo waxa lagu kala saari lahaa kuwa muwaadiniinta ee diidan maamulka Abiy Ahmed ka soo horjeeda ee doonaya iyagu in ay si kale ama dhaliilo weyn u arka in ay dawladdu ay leedahay marka laabana dawladdeegaanka Soomaalida 12 xubnood ee la sheegay inay la xiriiraan argagixisada waxaa laga soo kala qabtay deegaano ama degmooyin kala ah Doolowado Qalaafe Celkari Goday iyo Cadaadle iyo sidoo kale Jigjiga intaas ayaa laga soo kala qabtay bal dadkaasi may wada noqon karaan argagixiso mise waa nidaam siyaasadeed oo haatan cagjar oo dadkaasaga ka afkaarta duwan oo rabo inuu ku cuburiyo horta goobta anagu ma tagin laakiin markii la qiyaaso dadka inta dhan waxa lagu qiyaasi karaa in ay yihiin ururadii hore ee TPLF inay ka tirsanayeen kuwaasi oo qalqal amni looga yaaban yahay inay geliyaan dawladda Soomaalida wayna noqon karaan argagixiso oo hadda ciidan awood leh iyadana dhinaca kale markii laga fiiriyo ciidanka liyu booliska kala aragti duwanaansho ayaa soo kala dhaxgashay isaga naftigiisa isma aaminsana horin walba meesha ay ku jirtay ayaa leeyahay kama soo bixi kartaan waxay amar ka sugayaan madaxweyne Cagjar oo inta amarka uu ka bixinayo oo maartay meesha aad laga dhahay ay sugayaan waajibkii loo idmaday sidii ay u gudan hadda uma gutaan ciidanka liyu booliska oo ayadana halkaasi dhaliilo way ka iman karaan oo argagixisada waa la dhigi karaa waxay heleen firaaq ama waxay heleenba dulduleelo ama meelo ay ka soo dusi karaan oo ay uga soo gudbi karaan gudaha ay u soo gali karaan dalka Itoobiya sidaad ogtahayba dawladdeegaanka Soomaalida ciidamadii gaarka ah ee ku la nool jireen ee amniga sugahayay ee lagu tilmaamay inay yihiin geesiyiin ama rag aad u feejigan ama ciidan aad u feejigan ayeen oo Itoobiya kale ay marar badan waa la qabjabiyo waxa la yiri madaxweyne Cagjar meeshu inay diro ayaad qaadaysaan waad sugaysaan ilaa ya amarka inta uu ka bixinayo ayaad sugaysaan marka waxaan xusuusinaynaa dhageystayaasheena in ciidamadu hadii la qabjabiyo oo waajibkii loo dhaariyay ee loo idmaday ee loo soo tababaray ee u carbisnaayeen laga garan mariyo oo loo adeegsado in gudaha iyo dadka ka adkaartan dawladda bas beegsada la yiraahdo waajibkooda ayaa dhumaya taas ayaana keentay in argagixisada ay soo dhumato waana macquul in argagixisada saxda ahayd ee argagixisada loo yaqaan ay yihiin aad baad mahadsan tahay Santiago inta aan kaga tagnay wararka dalka Itoobiya waxaa jirto dagaalo ba'an oo haatan laga soo sheegay inay ka socdaan gobolka Darfur ee isku haystaan South Sudan iyo Sudan Weyn gobolkaasi waa gobol qani ku ah shidaalka iyo sidoo kale wax soo saarka labada dhinacba waa mid walba asaga ayaa sheeganaya waxaana ku dhaqan dad ayagu ka soo jeedo labada qowmiyadood oo qowmiyada Carabta iyo sidoo kale tan South Sudan degto marka halkaasina waxaa ka dhacay dagaalo ba'an kuwaasi oo labada qowmiyadood u dhaxay waxaana iska direen in ka badan 160 qof in la midana dhaawac weeyaan bal maxaa u dambeeyay warkaasi adigu waxaan ku arkay soo dhigdhiganay horta dabcan ugu yaraan waxa la leeyahay waxa dhimatay 168 qof ayaa markii ugu horeysay naf weeyday dagaalkan wuxuu ka bilowday baa la yiri nin hubaysan ama qori wata oo dad rayid ah ku laayay galbeedka Darfur kadib marka labada qowmiyadood ayaa loo kala baxay ninka haybtiisa laba sheegin oo lama cadeynin warbaahintu maysan cadeynin inuu Carabta ka tirsanaa iyo inuu kuwan kale ee Afrikaanka kale uu ka tirsanaa meesha waxa la isku dagaalaya baa la yiri Carab iyo kuwa aan Carab ahayn dabcan waa kuwan madow ee dhinacan soo jira koonfurta Suudaan iyo kuwan Carabta soo Suudaan ta weyn ayaa la yiri waa dad maaragtay wadadaga gobolka Darfur Suudaan waxay sheegtay in dagaalkaasi uu ka dambeeyay maleeshiyaad
ka soo jeeda bay dhaheen dhinaca South Sudan sidoo kale waxay ku eedeysay inay Sudan iyadoo ay dagaalka bilowday dagaalkuna wali waa socdaa khamiistii ayuu soo bilowday 168 qof ayaana hadda la xaqiijiyay inta dhimatay walina dagaalku waa socdaa shalay ayuu ugu darnaaba la yiri oo dagaal aad u weyn ayaa koonfurta iyo galbeedka labadaba ka socday baa la yiri waxaad moodaa marka inay maleeshiyaad arintu ay ka weyn tahay oo ciidamadu ay labada dhinacba hadda ay dagaalamayaan ay kala safteen aad iyo aad ba mahadsantahay daawadayaal idinkuna waad mahadsantihiin daawashadiina intaan bar warka xiga aan ku kulmi doono waxay naga tagay sidaas iyo amaanaha